shiraalka oo dheer mar baa dharag la waaya adigoo dhibaataysan baa dhibicu hoora dhayiya gadhoodh baad cabtaa 100 dharaarood muska reerka wadayaal haddaad meel isugu keento maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco xildhibaano ka socda wakiilada iyo deegaanka ayaa ka qayb galay xafladda xiritaanka shirka la magac baxay Tawfiiq shirkaasi oo 7 cisho uga socday mid kamid ah beelaha dega gobolka Togdheer shirkan oo ka qabsoomay deegaanka Ismciil xuseen ayaa ahaa mid ay beeshaasi kaga tashanaysay aayahooda waxaana ka soo qayb galay cuqaal salaadiin waxgarad aqooyahan dhalinyaro iyo marti sharaf aad u tiro badan ugu horeyntiinba waxa shirkaasi ka hadlay isla markaasina ujeedada uu daaran yahay faahfaahin ka bixiyay Suldaan Aadan Suldaan Cayn iyo Yaxye Ibrahim Awdiriye waxaana kamid ah hadaladoodii mahad celiyo ajiibidii aan soo iibteen codsigayagii ahaa inaan nagala soo qayb gashaan magaalada Ismciil xuseen oo in muddo ah socotay hawsheedu magaalada Ismciil xuseen oo iyo shir isku sidkan qabsaday ardayga beesha Ismciil xuseen oo ka tirsan ardayda reer xuseen waxay isla qaadatay xoojiyo nimada reerka lagana fogaado wax kasta oo tafaraarq keeni kara laba ilaaliyo nabadgelyada xasiloonida iyo deris wanaaga deegaanka iyo guud ahaanba gobolkeena Togdheer saddex in la ilaaliyo deegaanka imika waxay deegaanka aynu ku noolahay ee ku dhaqanahay lagana hortago wax kasta oo keeni kara xaaluf sida goynta dhirka shidida dhuxusha iyo wixii la mid afar beeshu waxay ku heshiisay islana qaadatay u diyaar garowga iyo ka qayb qaadashada doorashooyinka inagu soo foole ee golayaasha deegaanka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo socda waxaan u mahadnaqaynaa guddigii qabanqaabada shirweynaha Ismciil xuseen waxaan u mahadnaqaynaa reer guuraagayagii iyo reer miigayagii xoolaha noo keenay waxaan u mahadnaqaynaa dhammaanba cid kasta oo qayb ka qaadatay imika 2 bilood iyo 3 bilood ka hortay dad yar baa joogay maanta 200 oo qoys baa degan waxa ka dhisan ilaa 100 guri shirku wuxuu ahaa shir nabadgelyo iyo daneed wax lagu hayay wanaag iyo midnimo iyo in laga shaqeeyo iyo xasiloonida dadka waxa qabtaa waa shicibka community service ba caalamka oo dhan ku nool yahay taasna waxa keena dadku inaan ma garanaysa isagu wuxuu qabsado waa ismuujiyeen bilcawsta ka bixi mayso haddaynaan heer gobol iyo heer degmo iyo heer qaranba iyo mid maxay tahay beeleedba aan loo muujinin waxtar cod iyo cuudba magaaladeenna magaalo hore u marta oo malcaamadeeda iyo iskuuladeeda iyo waxbarashadeeda iyo wax waliba ay hirgalaan ayaan Ilaahay uga baryanaa ay ka tahay nabadgelyada oo ay laba ka tahay in meesha wax lagu barto aqoon laga helo oo ay saddex ka tahay in lagu dhaqdo tacab xalaal lagu kasbado ugu dambeyntiina waxa soo afmeeray xafladaasi barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xaydi iyo maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad iyo qaar kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada iyo deegaanka ee degmadaasi Burco waxaana kamid ah hadaladoodii dawladdu waxay geysataa waa wax danta guud ah idinka waxa la idinka baayay qurbajoog iyo qulqulbajoog ba inaan magaalada dhistaan dawladda dhexe ilaa madaxweyne ilaa golayaal ilaa walba oo wax qaban kareysana waxaan u sheegaynaa in kaalinteedu banaan tahay la idin sheegay reerku wuxuu ballan qaadayaa oo taladiisa iyo go'aamadiisa ay ka soo baxay ay noqdeen sidii la idin akhriyay annagu gacan baan ku leenahay mid horena waan ka geysanay tadamana haday tahay saldhigiyo hadii ay tahay maaragtay waxyaabihii kala iskuul iyo waxyaabihii kale ay degmadu u baahnayd shakhsiyan waan uga qayb qaadanaya dawladda hoose ahaan waan uga qayb qaadan horeeyay la qaato waxa uu horeeyay nabadgelyo halka muddada fadhideena ku jireyseen haddaan nabadgelyo jirin maydu fadhideen waxa la idinka rabaa qodobada agaadheen inay hirgelisaan waxa la idinka rabaa inaad jaarkiina nabad kula noolaataan waxa la idinka rabaa inay iska reebtaan cunfiga iyo xumaanta waxa la idinka rabaa sidii aroori bari ahaan jirtay ina ahaataan idinkiyo dadka kale wada degantiin oo ku walaalowdaan waliba dawladda dhexe maadaama ka wakiilay waxaanu ku dadaalaynaa wadada seen u dheereyno Maxamed Yuusuf Cabdilaahi Maxamed Wardi TV-ga qaranka magaalada Burco.